السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا ونكسن دلهانتين بوا مركا لي يحمنتيني ورقتي ذو حي قرآن أو تضبط كهال مركا ليها طانشة شدة التلفزيون كان يشمع تي برنامج كهلا وحيدين دادي ساني قواعد مع موسى wargeyska dawane ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay waxaad u baahan tahay inaad u safarto Somaliland si aad u hesho aragti khibrad leh. Qormada wargeyskan ayaa soo baxday 6 bisha September sanadda 2021. Wargeyska oo soo xiganayay buug cusub oo qoray aqoonyahan Faransiis iyo taariikhyahan Dr. Gerard Bruni oo ku takhasusay Geeska Afrika iyo gobolka harooyinka waaweyn ee Afrika ayaa si faahfaahsan loogu sharaxay guulaha iyo horumarka uu ku tallaabsaday qaranka Somaliland si iskii ah iyadan cidna ka caawin. Buuggan oo ciwaan looga dhigay raadinta qarannimada Somaliland ayaa warbixin ka diyaarisay warbaahinta caanka ah ee Nation oo ka howlgasha dalalka Kenya, Uganda iyo Rwanda. Warbixintaasi si wada jir ah u diyaariyeen koox xoriyaal oo hogaaminayay ee Fastigila ayaa u qornay sidan: waa sidee xaaladda ku noolaanshaha dalalka dunida inta badan aqoonsi ka haysan. waxaad u baahan tahay inaad u safarto Somaliland si aad u hesho aragti khibrad leh. Malaha waad ogtahay inuu yahay dalka dugan Soomaaliya, laakiin weligaa fursad uma helin inaad fahanto farqiga u dhexeeya. Somaliland wadan ku yaala Geeska Afrika, qiyaasta ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof. Sidoo kale qoraaga buugga taariikhda Somaliland wuxuu wax ka soo qaatay taariikhda Soomaaliya. xubinteena labaad ee barnaamijkeena cilmi baarisada ka rogay in isbeddelka cimiladu sabab u noqonayo inay fariisyo halis badan soo baxaan. Khubarada caafimaadka waxay walaac weyn ka qabaan in kulaylka xad dhaafka ah ee gobolka dunidu saameyn weyn ku yeelan karo in ay dunida ka dilaacaan fariisyo fara badan kuwaas oo noocyo kala duwan leh aadamaha u keeni kara halis caafimaad oo weyn. iyadoo maalinta ka dambaysa khubarada caalamku gaar ahaan kuwa cimilada ay sheegayaan in kulaylka dunidu sii kordhayo.